السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مد Soomaaliyeed meel walba joogtaan waa salaamantihiin. magacaygu waa Burhaan Axmed Warsame. waxaan rabaa maanta inaan halkaan baaq u soo jeediyo xildhibaanada Soomaaliyeed, qaasatan xildhibaanada reer Galmudug ee annagana matala. xildhibaano waxaan idinka codsanaynaa codkiina inaad ugu deeqdaan oo aad siisaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, maxaa yeelay waa madaxweynaha qaranka Soomaaliya. waxa uu noo qabtay wax wanaagsan weeye. 4 sano kusoo fadhiyay meel fiican ayuu wadanka soo gaarsiiyay. waxaana rabnaa inaa 4 kale ugu dartaan siduu dadaalkiisii uu shala soo bilaabay uu maanta usii dhammaystiro oo uu wax wanaagsan oo la taaban karo ay u noqdaan. adduunka caalamka horumar wuxuu ku gaaray madaxweyne walba 4 sano siiyaa, 4 kalena wuu ugu daraa, ama 5 sano siiyaa, 5 kalena wuu ugu daraa sidii wanaagii iyo waxqabadkii uu soo qabtay oo u dhammaystirto. idinkana waxaa idinka rajeynayaa codkiina inaad ku cibaadaysataan. xildhibaanadayda sharafta leh ee reer Galmudug, codsigaygaas waxaa rajeynayaa inaad kasoo jawaabi doontaan oo aqbali doontaan oo 15 May aan ugu cimaamadi doontaan inaad Maxamed Cabdullaahi Farmaajo codka siisaan. biliis nagu cimaamada biliis. annagaa mustaqbal weynay oo rafaadnay oo wareernay oo 30 sanana lagu soo koriyay dhibaato iyo rafaad. waxaan rabnaa ilmaheena inaan mustaqbal u raadino iyo sharaf iyo karaamo iyo dawlad qab iyo sharaf leh. ma rabno dawlad dambe oo loo hoos fariisto ajnabi iyo gaalo iyo dad Ilaahay subxaanahu wa tacaala ka furtay. ma doonayno inaan mar dambe u daba istaagno. biliis waxaa idinka codsanayaa xildhibaanadeedii sharafta leh ee reer Galmudug ee lagu yaqaanay karaamada iyo sharafta inaad codkiina siisaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. maanta haddaad codkiina nagu cimaamadaan, berri abaalkaad noo dhigataan waa idiin gudi doonaa insha Allah.